السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maalmo kadib cagta gali doonaa sanadka cusub ee miilaadiga 2022 waxaan Allah xaqiisa ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo sanadkan mid ka duwan sanadihii hore ee na soo dhaafay noogana khayr badan insha Allah. hadaba adiga maxaa qorshaha aad u diyaarsatay sanadkan waji noocee ah ayaadna ku qaabili doontaa sanadkan ku soo wajahaya ama ku bilaaban doona waayo waxa ku bilowday sanad cusub waxa ku soo martay fursad kale oo cusub aadna wax badan kaga bedeli karto noloshaada. waxaa laga yaabaa sanadkii la soo dhaafay in ahdaaf badan oo aad lahayd aadan gaarin ama qorshihii aad u diyaarsatay aadan ka mari dhalin wali haatan dhaqaaq waxaa bilowday sanad cusub badal qorshihii sanadkii hore iyo habkaad u diyaarisay samayso jadwal cusub adigoon u dejinaya qorshe aad ku gaarayso hadafkaaga. awood uma lihid hadda inaad saxdo waxyaabaha aad soo qaladay sanadka tagaya sidoo kale awood uma lihid inaad soo celiso waqtigii ku dhaafay ka beerdaroobay ama aad ka faa'iideysan weyday balse waxaad awood u leedahay in aad isbedel samayso iyo in aad talaabo qaado oo aad ka dhaqaaqdo meeshii aad taagnayd fadhiga ka kac oo hoggaanka u qabo noloshaada una hoggaami dhanka ay guushu ka xigto u samayso qorshe cusub sanadkan si aad u xaqiijiso riyooyinkaaga una gaarto hadafkaaga. waxa laga yaabaa sanadkii hore qorshe ka qaldanaa awgeed in aad u gaari weyday hadafkaaga isbedel samee ka bedel wax badan noloshaada sanadkan samaysona caadooyin ama dabeecado wanaagsan xitaa ugu yaraan in aad habeenkii waqti fiican seexato subaxdiina aad xilli hore soo toosto waayo inteena badan dhalinyarteena waxaan ku dhibanahay seexashada habeenkii waqti fiican taasi oo nagu sii hagaysa in subaxdii aan xilli hore soo kici weyno. in aad subaxdii waqti fiican soo kacdana waxay in badan kuga caawin kartaa in aad xaqiijiso riyooyinkaaga isbedel weyn aad ku samayso noloshaada ama inaad maalintii ugu yaraan hal aayad xitaa aad ka akhriso quraanka kariimka oona ah iftiinka maalintaada oo dhan. ugu dambeyn waxaa mahad u sugnaatay Allahiina soo gaarsiiyay sanadkan anagoo caafimaad qabno waxaa noo bilowday sanad cusub insha Allah waxaan bilaabi doonaa nolol cusub iyo talaabooyin cusub aan ku xaqiijin karno hadafkeena. nastawdicuka ya rab بداية سنة جديدة اللهم اجعلها أحمل مما نتمنى واكتب لنا تغييرا للأفضل في أحوالنا وحقق خيرا مما نتمنى. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم اجعله عاما مليء بالسعادة والفرح. اللهم أعدتنا عليه ثواب الغفران فتقبله منا ولا يقضع رجائنا منك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضى واجعل الباقي من عمرنا خير. اللهم اكتب لنا خير الأقدار في بداية سنة جديدة. اجعلنا في وداعك يا من لا تضيع ودائعه. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعله عام الخير وحقق لنا ما نتمنى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. muuqaalkeena maanta oo wax badan aanan mowduuc soo diyaarinina intaan ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.